السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي واخذ ورسمه كسو دوادا موقال كومان ad ku baran doontaan qaabka ugu fudud ee fiidiyoasha ku jira YouTube-ka aad ugu soo dejisan lahayd mobilkaaga adigoona isticmaalayn ama u baahnayn wax program ah inaad ku soo dejisato. Hadda waxaan bilaabi doonaa qaabka ugu fudud ee lagu soo dejinayo. Marka hore waxaad tagaysaa browser-kaaga ugu jira mataqaanaa Chrome-ka ama noocyada kale. Chrome-kan ku dhufanaa isla markaa waxaad ku qoraysaa YouTube-ka ayaad galaysaa youtube.com sida caadiga ah. Kadib waxa ku soo baxaya waxaad raadinaysaa fiidiyaha aad rabto. Markuu saan oo kale kugu soo baxo fiidiyaha aad rabto waxaad ku dhufanaysaa markaa fiidiyihii aad rabtay. Markaa waxaan ka qaadanaa mid ka mid ah fiidiyaashan muuqaalada halka ku jira kan baynu ku dhufanaa iska joojinaa codkiisa. Kadib markuu muuqaalku saa kugu soo baxo halka sare waxa kugu qoran m oo ka macna mobilka inaad ka soo gashay inuu macnaha inaad mobil ka gashay m.youtube.com. isla markaa waxaad sameynaysaa wax kale ma sameynaysid inta u dhaxaysa m-ta iyo youtube-ka ayaa waxaad gelinaysaa halkan soo dhaqaaji youtube-ka waxaad gelinaysaa ss. kadib waxa ku soo baxaya linkigan hoose ee ah m.ssyoutube.com kamaad ku dhufanaysaa markaas wuxuu ku geynayaa qaybtii aad ka soo dejisan lahayd fiidiyaha aad rabto isagoo ku soo koobi gareeyay. waa qaabka ugu fudud uguna sahlan ee muuqaalka kala soo degi karto YouTube-ka. marka cabaar kadib waxa soo baxay YouTube-kii waa kan halkan muuqaalkii baa inoo soo baxay YouTube-kan rabnay inaan soo dejisano. isla markaa waxa ku qoran download dhinaca kalena waxa ku qoran nooca mataqaanaa rabto inuu kugu soo dejiyo. marka noocyo badan baa jira oo fiidiyaasha lagu daawado oo kala duwan. markaas hadayna waxaan kaliya ku deenaynaa noocan MP4-ka. kadib waxaanu sameynaa markaa download baan leenahay download baan ku dhufanaa. marka haddaad aragtaan downloading baa halkan hoose ku soo qoray waa kaas fiidiyihii waa dhameeyay. fiidiyihii markuu dhameeyay halkan wuxuu ku qoranayaa open. markaas saas ayaad ugu soo dejisan kartaa fiidiyahaagii. haddaan eegno fiidiyihii noo soo dejiyay fiidiyihii halkan uu dhameeyay laakiin kadibna wuxuu geynayaa qaybtii fiidiyaha ee mataqaanaa mobilkaaga. kadibna waad furan kartaa always hada tiraaho kadib wuxuu ku furayaa fiidiyaha dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waa kan fiidiyihii markaan aan soo dejinay ay weeyaan. markaas qaabkaas ayaad u soo dejisan kartaa fiidiyaha. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.